Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan ku soo jirnay markaa dhacdadii Kacab bin Maalige aynu ku soo jirnay haddaba halkii inoogu dambeysay hadaynu kasii bilowno. Kacab ayaa markaa waxa uu yidhi markii aan maqlay rasuulka sallam ayaa soo noqday oo marka jidka ayuu soo marayaa markii aan maqlay ayuu walaacii igu sii batay maskaxdayduna markaa waxay bilowday inay ka fikirto wax kasta oo macquul ah oon cudurdaar ku sheegan karayo waxaana isweydiinaya oon lahaa talow maxaad ku marmarsiiyotaa si aad uga fogaato cadhada uu rasuulku uu ku hayo si uusan rasuulku kugu cadhoonin maxaad samaysaa baan isweydiinayay weliba waxaan la tashaday raggii waaweynaa ee markaa qabiilkayga ka dhashay ayaan la tashaday waxayna markaa ay isugu kay beegbeegeen wax kasta oo cudurdaar noqon karaya oon marka aan ku cudurdaarinayay laakiin markii uu rasuulku uu soo noqday ee uu Madiine u yimid ayaa dhammaan waxyaabihii cudurdaaradii ahaayoo dhan maskaxdayda way ka wada baaba'een waxaana xaqsaday inaanan marnaba aanan cudurdaarkan beenta ah inaanan marnaba aanan ku badbaadaynin baan xasuustay markaas ayaa waxaan go'aansaday buu yidhi inaan xaqiiqada iyo runta aan sheego oo wax walba iyo siday u dhaceen inaan sheego ayaan go'aansaday arrintaasina runtii waxay inoo muujinaysaa iimaanka xaqiiqada ah iyo iimaanka dhabta ah ayay inoo muujinaysaa qofka mu'minka ana dabcan khalad wuu ka dhici karayaa laakiin khaladka ka dhacay qofka kuma sii adkaysto xataa balo fiirso nebi aadam iyo sidoo kale ibliis labadooduba dembi wuu ka dhacay laakiin waxay ku kala duwanaayeen wuxuu ahaa nebi aadam markuu dembigu ka dhacay dembigiisii waa uu qirtay laakiin ibliis isagu dembigiisii markaa uu ku sii adkaystay dabcan qofka bini aadamka ahna macsuum ma aha qofka bini aadamkaana marka uu khalad ka dhaco ee uu khaladkiisa intuu qirto uu ka toobad keeno markaas ay darajadiisu ay kor iyo kor markaa u sii kacdaa xataa rasuulka sallam xadiis waxa uu ku yidhi qoomamadu waa toobo macnaha qofku markuu dembi sameeyo inuu dembigiisa ka qoomamoodo oo uu yaqiinsado oo uu qirto inuu dembi galay qoomada uu markaa uu ka qoomameynaya iyada lafteedu waxay caddaynaysaa in qofkan uu rabo inuu toobad keeno ayay markaa caddaynaysaa Kacab markaa waxuu yidhi subaxii markay gaadhay ayuu rasuulka sallam ayuu Madiine soo galay markuu Madiine soo galayna sidii dhaqankiisa aan jirtay ayuu sameeyey markuu magaalada sidaa u soo galay masaajidka ayuu galay 2 ragcadood buu markaa tukaday kadib ayuu markaa dadkiiba markaa uu axwaasha ka qaaday oo uu la fadhiistay markaas ayaa waxaa saf soo wada galay dhammaan dadkii markaa dagaalka ka baaqday oo dhan ayaa markaa saf soo wada galay iyaga oo doonaya inay cudurdaar sameeyaan oo rasuulka u cudurdaartaan iyaga oo markaa doonaya dadkii safka soo galayna waxay ahaayeen buu yidhi Kacab isagoo markaa ka sheekeynaya dad ka badan markaa ilaa 80 qof ayay ahaayeen taa markaa waxay ka dhigan tahay magaaladii dhannayd keliya 80 qof oo markaa awoodi karayay inay dagaalka u baxaan ayaa markaa 80kaasiba ay ka hadheen 80ka qof ee dagaalka ka hadhay haddana doonaya inay rasuulka u cudurdaartaana waxay u badnaayeen munaafiqiin bay u badnaayeen taasoo markaa ka dhigan dabcan magaalada Madiina ee munaafiqiinta marka la isku wada daro ilaa 80ka qof markaa waxaa 80ka qof ka yar ay markaa munaafiqiinta Madiinaba ay ahaayeen runtii una fiirso magaalada Madiina ay waqtiga ku noolaayeen in lagu qiyaaso ku dhawaad markaa 4,000 qof markaa 4,000 qof markaa ilaa 70 ilaa 80ka unbaa munaafiqiin ahaa intii munaafiqiinta haddaba saf bay soo wada galeen rasuulka marka u yimaadeen iyagoo u cudurdaarinaya oo oranaya markaa ilaahayna dambi dhaaf noo weydii rasuulkuna markaa cudurdaarkoodii waa ka aqbalay waxa ay laabaha ku qarsanayaanna ilaahayba markaa u daayay Kacab markaa waxuu yidhi marka waqtigii la soo gaadhay anigu aan rasuulka sidaa u soo hor istaagay ayaa rasuulka sallam wuu dhoolla cadeeyey wuxuuna u dhoolla cadeeyey sidii qof xanaaqsani qaabku u dhoolla cadeeyo oo kale ayuu markaa u dhoolla cadeeyey runtii una fiirso qofku caadiyan markuu xanaaqsan yahay ma dhoolla cadeeyo laakiin qofku markaa wejiga ayuu camburiyaa oo qofku wuu iscamburiyaa laakiin rasuulka sallam sidaa muusan ahaan jirin isagoo xataa xanaaqsan haddana saasay tahay wuu dhoolla cadeyn jiray saxaabaduna markaa maatamisaa ku yaqaaneen hadda Kacab dhoolla cadeynta rasuulka wuu kala fahmayaa marka dhoolla cadeyntiisu ay farxad tahay iyo marka dhoolla cadeyntiisu ay markaa ay cadhag ku jirtana wuu kala fahmayaa markaas waa sababta marka Kacab uu leeyahay rasuulku markaan soo hor istaagay wuu dhoolla cadeeyey inuu markaa sidii qof xanaaqsan qaabku u dhoolla cadeynaayo kale waa marka labaad runtii balo fiirso rasuulku inuu Kacab ku xanaaqo iyada lafteedu waxay ku tusinaysaa arrin wanaagsan sababtoo ah xanaaqa oo rasuulku uu hadda Kacab ku xanaaqsan yahay waxay ka dhigan tahay rasuulka sallam Kacab markaa iyo inuu dagaalka ka hadhay rasuulku uu ka niyad jabsanaa manuusan ka filaynin laakiin munaafiqiinta kale iyaga maadaama rasuulku ogaaba inay munaafiqiin yihiin isagoo rasuulku iyaga muusan ku xanaaqin laakiin inuu Kacab ku xanaaqo waxay ku tusinaysaa iyada lafteedu arrin wanaagsan bay ku tusinaysaa haddaba Kacab markuu rasuulku sida u soo hor istaagay ayaa rasuulka sallam waxuu ku yidhi Kacabow adigana cudurdaarkaagu waa maxay buu ku yidhi Kacabow miyaadan caafimaad qabin Kacabow miyaadan neefkeela aadan iibsan
arrintan runtii u fiirso waa cajiib. Arrintan xataa waxay inoo caddaynaysaa in rasuulka saxaabada oo dhan uu ka warayay, qof kastana xaaladiisa uu ogaa. Su'aalahana sababta hadda Kacab u weydiinayo waxaad ka dareemi kartaa in rasuulku uu ka warayay Kacab. Markaas ayuu Kacab yidhi, yaa rasuulallaahi buu yidhi, wallaahi baan ku dhaartay maanta haddii aan hor fadhin lahaa qof kale oon adiga ahayn oo adduunyada oo dhan, qofkaasi adduunyada oo dhan meeshuu doonaa ka yimaadee, haddii aan qofka hor fadhin lahaa maanta waxaan heli lahaa qaab aan uga baxsan lahaa oon marka aan uga cuurdaaran lahaa in qofkaasi uu ii xanaaqo. wallaahi baan ku dhaartay aftahanimadii aan kaga baxsan lahaa iyo cuurdaar aftahmaysan oon keeni lahaana ilaahay wuu i siiyey oo qofkaa kale si unbaan uga baxsan lahaa. laakiin haddaan maanta been kuu sheego oon beentaa aan kuu raaligeliyo, ilaahay baa ii cadhoon, beentaydaana markaa berri khashafi doona, adigana ii kaa cadhaysiin doona. laakiin haddaan maanta runta aan kuu sheego, inkastood ii cadhoon doonto, haddana waxaan rajaynayaa in ilaahay i cafin doono. yaa rasuulallaahi, wallaahi baan ku dhaartay wax cuurdaar ah ma lihi. hadda ka hora waqti aan ka xoog badanahay, ka quwad badanahay, ka caafimaad badanahay, aan ka hanti badanahayna hadda ka horba ima soo marin. markuu haddaba uu Kacab sidaa yidhi ayaa rasuulka sallam uu hadlay, waxa uuna yidhi, ninkanay noqotay, ninkani runta ayuu ka hadlay. arrintaas ayna tusinaysaa in rasuulku uu dareensanaa in munaafiqiintu ay been sheegayaan. markaasuu haddana rasuulku yidhi, Kacabow istaag, adiga arrintaada ilaahay baa yaa go'aamin doonee, adiga arrintaada ilaahay baa go'aan ka gaari doona oo go'aamin doonee, istaag buu ku yidhi. markii haddaba sida Kacab loogu yidhi ayaa Kacab uu soo kacay, wuuna soo tagay, uuna meeshiina uu ka soo dhaqaaqay. markuu soo dhaqaaqayna markaa waxaa soo raacay koox kale oo markaa qabiilkiisa ah ayaa soo raacay, gurigiisana way u soo raaceen. waxayna ku yidhaahdeen, Kacabow hadda ka hor nin wanaagsan baad ahaan jirtay, macnaha qofka noogu wanaagsan ayaad ahayd, maxaad ugu beeri weyday cuurdaarka ay ragga kaleba samaynayaan, macnaha cuurdaarka ay munaafiqiintu sameeyeen oo kale maxaad ugu beeri weyday? iyaguba way cuurdaar daarteen. markaad cuurdaar daaratana rasuulka ayaa dembi dhaaf ilaahay ku weydiin lahaa. dembi dhaafka oo rasuulku sallallahu ilaahay ku weydiinayana waxay kugu filan lahayd dembigii aad gashay in lagaaga dhaafee. Kacabna wuxuu yidhi, tolkay markaa waxay igu adkeeyeen, arrintaas igu adkeynayeen ilaa oon ku dhowaaday inaan markaa intaan kaco aan arrintii ka yeelo. markii dambe ayaa haddaba intaana kicin ayaa waxaan weydiiyey oon ku idhi, laynkii iyo dadkii safka ku jiray ma jiraa muxuu ahaa qof kale iyo dadyo kale oo iyaguna sideeda oo kale yidhi wax cuurdaara ma haysano? markaasay ku yidhaahdeen, haa 2 nin baa jira. waa labadee buu weydiiyey. waxayna ku dhaheen, 2 nini waxay kale yihiin Muraare ibnu Rabiic alcaamiri iyo sidoo kale Hilaal ibnu Umaya alwaaqifi. markaasuu Kacab yidhi, wallaahi 2 nin ay ii magacaabeena waxay ahaayeen 2 nin oo wanaagsan oon ku aqaanay iimaan iyo taqwo aan ku aqaanay, waxayna weliba ahaayeen 2 nin oo dagaalkii Badar ka qayb galena way ahaayeen. markaas ayaa haddaba waxaan ku idhi oon go'aansaday, anigu haddaba waxaan taagnaanayaa booska ay 2 nin taagan yihiin, ayaan ahaanayaa halkii aan ragga kale aan kaga beeri lahaa. arrintana runtii waxay inoo muujinaysaa faa'iidada iyo wanaagga ay leedahay dad wanaagsan qofka inuu la saaxiibo. hadda u fiirso, markii hore Kacab tolkii baa saameyn gaadhay oo markaa arrintaa uusan rabin, marka dambena Kacab ku xumaan lahayd ay markaa farayeen. laakiin markuu 2 nin arkay, 2 nin ayuu markaa ay niyaddii ugu degtay. waa marka labaade inaysan isku mid ahayn, tirada iyo tayadu inaysan isku mid ahayn. hadda u fiirso, Kacab wuxuu kala dooranayaa 80 nin ayuu 2 nin keliya uu ka doorbidayaa. 2 nin ayaa markaa ka taya badan, 80ka kale tirada badanna 2 ninba markaa uu ka kalsoon yahay. mar walbana xaqa iyo xaqada laguma qiimeeyo dadka faraha badan ee haysta, laguma qiimeeyo waxaa lagu qiimeeyaa dadka haysta ee runta ku dhagan, tayadooda ayaa markaa lagu qiimeeyaa. ayaa haddaba Kacab waxa uu yidhi, rasuulka sallam wuxuu naga mamnuucay muslimiinta kale inay xiriir nala sameeyaan oo nala dhaqmaan. ayuu markaa 3dayadaas uu naga mamnuucay. 3daa qof markaa ka mid a dadkii markaa khaswada ka hadhay, taasoo ka dhigan tabcan markaa munaafiqiintii kale iyaga lama ciqaabin, wax ciqaabana laguma soo ridin, laakiin ciqaabta markaa aakhire ayaa lagaga jari doonaaye. waa marka labaade qofka mu'minka ahi ciqaab walba iyo markaa wax iyo dhibaato walba iyo dhib walba oo adduunyadan ku soo gaadha waxay ka dhigan tahay waxaa lagaga fudaydinayaa ciqaabtii iyo dhibkii aakhire soo gaari lahayd ayaa lagaga fudaydinayaa. dabcan keliyana xataa markaa qofka mu'minka ah keliya ma aha haddii tusaalahaan kale dowladda islaamigii ay jirto. dowladda islaamigii dadooga dembiyada qaar geysta xuduudda marka lagu oogo, maadaama dadka dembiga geysta xuduudda lagu ooga ay toobadkeen ay iyaga uga dhigan tahay, intaasoo keliya dabcan
qofka mu'minka ah kuma filla. Waxayse ka dhigan tahay xataa haddii aanan qofka muslimka ah mu'minka ah aanan xuduud xataa la marnin, laakiin uu dhibaatooyin iyo caqabado fara badani ay adduunyadan kusoo wajahaan, waxay ka dhigan tahay uu qofka mu'minka ahina u fahmayaa in dhibaato aakhira kusoo socotay in hadda lagaga sii fudaydinayo. Kacabna markaa wuxuu yidhi amarka uu rasuulku soo rogay waxay ahayd inaanan markaa saddexdayadaas aanan lala dhaqmin, lala hadal ilaa inta Ilaahay arrin kale uu soo rogayo. Amarka haddaba rasuulku markuu soo rogay oo uu yidhi saddexdaanan yaan lala dhaqmin, dadkii dhammaan siday u dhannaayeen way naga wada jeesadeen. Dadkiina waxay noqdeen dad aanan garanaynin oo kale. Wuxuuna yidhi markaa Kacab wuxuu yidhi waxaan dareemay oon u muuqday inaan khariib ku ahay isla waddankaygii iyo markaa dhulkii aan aqaanay iyo dadkii aan aqaanay inaan khariib ku ahay ayaan u muuqday. Sidoo kale Kacab wuxuu yidhi arladii waasica ahayd ee bannaanayna waxa ay noqotay sidii inay arladii ay cidhiidhi noqotay oo kale ayaan dareemay. Runtii bal fiirso, bal waxaad qiimaysaa adigoo xataa tusaale ahaan oo kale qof qaraabadaada ah ama qof aad jeclayd, qofkaasoo markaa kula hadli waayey oo kaa aamusay, cuqdada iyo markaa xanuunka aad niyadda ka dareemi lahayd bal qiyaaso. Isla arrintaasoo kale ayaa markaa Kacab ku dhacday. Dhammaan dadkii u yaqaanay, dadkii u jeclaa, dadkii u saaxiibaha la ahaa, dhammaantood way ka wada aamuseen. Meel walba u tago cid soo eegaysa iyo cid la hadlaysa wuu waayey. Waa marka labaadee bal waxaad u fiirsataa amarkii rasuulku durba sida uu u hirgalay. Keliya markuu yidhi saddexdaanan yaan lala hadlin, marka uu yidhi dhammaan magaaladii Madiina siday u dhannayd, saddexdaanan markaa cid la hadashay waa la waayey. Dabcan u fiirso, dadkana lama kantaroolayo, cid booliisa oo dadka ku khasbaysa oo odhanaysa ragga ka ag fogaada ma jirto. Keliya markuu amarkii rasuulku uu sidaa u soo baxay, magaaladii dhannayd amarkii markaa waa la wada fuliyey. Arrintaasoo inoo cadaynaysa markaa in magaalada iyo markaa sida ay reer Madiina ay iimaanka u lahaayeen. Dabcan amar uu qof soo rogayna qaabka kaliya waxa u fulin karaya qof iimaan leh unbaa qaabka u fulin karaya. Kacab markaa wuxuu yidhi xaaladda waxa aanu ku sugnayn 50 habeen ayaanu xaaladda ku sugnayn, balse wuu yidhi labadaydii kale ee saaxiib waa Muraare iyo Hilaale, iyagu markaa gurigoodiiba isku soo xidheen, cidna lama hadli jirin. Habeen iyo maalinna markaa gurigooda ay ku dhex ooyi jireen. Arrintaasna markaa iyaga aad iyo aad ayay u saamaysay. Laakiin aniga labadooda kale anagu waan ka yaraa, waana ka awood badnaa. Anaguna markaa anagoo u qastinaya ayaan suuqyada magaalada ayaan u dhex marmari jiray. Rasuulkuna sal slam salaadaha masaajidka ayaan kula soo tukan jiray, laakiin qofna ima soo eegi jirin, qofna ilama hadli jirin. Maalin walbana si ula kaca ayaan rasuulka ayaa markaa aan ku soo hormari jiray. Rasuulka oo markaa dad badan dadka hortoodan markaa ay dadkeena macnaha iyo saxaabadii ay meesha wada fadhiyaan ayaa maalin walba ayaan salaami jiray oon ku odhan jiray assalaamu calaykum yaa rasuulallahi baan ku odhan jiray. Mar kastana waxaan u fiirsan jiray afkiisa iyo bishimiisaan u fiirsan jiray bal inuu bishimaha yara dhaqaajiyo oo salaanta iga qaado. Laakiin waxaan arki jiray isagoo oon xataa aanan bishimihii aanan dhaqaajinaynin oo isaga laftiisu iga aamusan ayaan arki jiray. Runtii bal waxaad qiyaastaa heer xataa rasuulka Ilaahay uusan kula hadlaynin, salaanta kaa qaadaynin, oo xataa uu iska dhaafinayo. Sidoo kale Kacab waxa uu yidhi salaad walbana waxaan ku ag tukan jiray rasuulka agtiisa ayaan ku tukan jiray oo rasuulkan aad iyo aad ugu dhowaan jiray. Markaan aad ugu dhowaado ee uu tukanayana markasta aad baan u fiirin jiray oo indhaha ayaan xoog ugu fiirin jiray. Haddana markaan arko rasuulka oo markaa salaadiisa markaa ku mashquulsan oo diiradda saaraya, aniguna aan iska sii jeesto, anna aan iska mashquulo, ayaa haddana rasuulku wuu isoo eegi buu yidhi. Anaa markaa aanan arkaynin isagoo isoo eegayaan arkay, saadaan haddana usoo laba jeedsado isaga usoo fiiriyo ayuu haddana rasuulku uu iga jeedsanayay. Arrinta iyo qodobka oo xataa dabcan inoo muujinaysa in rasuulka laftiisu markaa uu doonayay in markaa la cafiyo Kacab, inuu xataa isaga laftiisu uu doonayay. Sababtoo ah Kacab markuu sii jeesto waa ka rasuulku soo fiirinaya, markuu Kacab dareemo in rasuulku soo fiirinayo ee uu soo eegana waa ka rasuulka ka sii jeedsanayay. Markii dambe ayaa Kacab waxa uu yidhi xaaladii markay igu adkaatay, muslimiintii oo dhanna waqtigii ay iga aamusnaayeen ee ay dhammaantood iska kay wada indhatirayeen markay igu dheeraatay ayaan dulqaadkii baa iga dhammaaday, waana adkaysan kari waayey. Markii dambe ayaa waxaan go'aansaday inaan booqdo oon u tago saaxiibkayga ugu wanaagsanaa ee aan lahaa, kaasoona weliba aanu ilmaadeera aanu ahayn, oo kaasoo ahaa saxaabigii la odhan jiray Abuu Qataada. Markaan u kacay guriga Abuu Qataada ayaa markaa gidaarka ayaan ka soo dhacayo waan soo booday, maadaama dabcan ogyahay inuusan albaabka ka furaynin. Halkaana markaa waxaan u soo dhacay buu yidhi gurigiisii baan u soo dhacay isagoo oo markaa bannaanka fadhiya.
kaca markaa waxau yidhi markaan u soo dhacay ayaa waan salaamay oo waxaan ku udhi assalaamu calaykum qadaado baan ku udhi, laakiin wallaahi baan ku dhaartay isaga laftiisiina xataa salaantii ma uusan iga ridinin. Markaasaan ku udhi buu yidhi qataado baan ku udhi ilaah baan kugu dhaariyey miyaadan ogeyn inaan ilaah iyo rasuulkiisa aan jecelahay. markaas ayuu qataada inuu u jawaabo iska dhaafay muusan xataa soo fiirninba. haddana mar labaad baa hadalka ku celiyey kacab uu ku yidhi qataadu ilaah baan kugu dhaariyey miyaadan ogeyn inaan ilaah iyo rasuulkiisa aan jecelahay. haddana mar saddexaad buu ku celiyey. markii saddexaad haddaba ayuu qataada intuu markaa xagga iyo hawada iyo cirka inta uu fiiriyey ayaa waxa uu yidhi allahu wa rasuuluhu aclam buu yidhi. runta una fiirso qataada hadda muusan u jawaabin, laakiin xaggaa sare iyo hawada iyo cirka ayuu la hadlay. cirkana markaa waxa uu ku yidhi kelmad iska xaqiiqa ah oo waqti walba oo la joogo xaqiiqa ah, kelmadaasoo ah ilaah iyo rasuulka unbaa mar walba waxa wanaagsan og. intaas kadib ayaa kacab intuu ishayn kari waayey ayaa markaa ilin iyo oohin ay sidaa uga soo burqatay gurigii qataadana markaa uu iskaga soo tegay. bal qiyaas muddo 50 cisho ah oona xataa aan lagula hadlaynin cid kale iska dhaafay saaxiibkaaga xataa kuugu dhowaa uu ka aamusay oo markaa lagula hadli waayey. arrintana dabcan muxuu ahaa ciqaab markaa ku ahayd kacab markaa waxa uu yidhi maalmihii u dambeysay aniga oo markaa suuqa iska dhex maraya ayaan waxaan suuqa ku dhex arkay nin nabdi ah ayaan ku arkay. nin nabdiya macnaha nin nabdiyaan ahayo oo kristan ahaa, gaar ahaan kristanka waqooyiga carabiga tegi jirtay. ninkaasoo ahaa ninkii nabadiyiintii muxuu reesha markaa kamid a, kaasoo markaa madiine yimid isagoo markaa cinab iyo alaabo u watay doonayay marka inuu iibiyo. ninkii haddaba nabadiga ahaa ayaa markuu alaabtiisi uu rabay inuu iibiyo ayaa dadka ayuu weydiinayey oo waxa uu ku lahaa yaa ii tilmaami karaya kacab ibnu maalik meesha uu joogo. dadkuna markaa gacanta igu soo fiiqayeen waxayna lahaayeen wakaa kacab ibnu maalik aad sheegaysaana macnaha way ii tilmaamayeen. ninkii nabdiga ahaa ayaa markaa ii yimid buu yidhi. ninkii nabdiga ahaa ayaa markaa waxa igu yidhi waxaan kaaga wadaa warqad baan kaaga wadaa boqorkii khasaasinada ayaan warqad aan kaaga wadaa. runta una fiirso boqorka khasaasinada ee la sheegayaa waa isla boqorkii markaa dagaalkan Tabuuk uu ku dhacay ee rasuulku uu ku duulay weeye. inkastoo san dagaalku dhacona ay iyagii markaa ay yaaceen, haddana arrintaasoo markaa inoo muujinayso dabcan in xataa khasaasinadii lagu duulay magaalada bartankeeda inay jaajuusayaal inay ku dhex lahaayeen oo muxuu ahaa raggii jaajuusayaasha ahaa intay qaadeen war sheegaya mid ka mid a raggii ansaarta ahaa ee sharafta badnaa mid ka mid a in Muxamed sallallahu alayhi wasallam iyo in markaa laga aamusay oo la war noocaa sheegaya ayaa markaa boqorkii loo geeyey. 50 cisho ee markaa lagu jirina muxuu ahaa boqorka waa ka fariinta soo diray. marka ninkan markaa wuxuu ku leeyahay boqorkii khasaasinada ayaan warqad kaaga wadaa. warqadana markaa waxaa ku qorayd waxaa la ii sheegay in saaxiibkaa oo rasuulku ka wasal salam in saaxiibkaa uu ku dayacay si xunna uu kula dhaqmay. ilaahayna kuma badin dhul inaad joogto ood ku noolaato dhul marka aad hooseyso oo marka xuquuqdaadiina marka la dayacayo oo lagu tumanayo nagu soo biir oo nagu soo biir anaga ku wanaajinayna oo farxad ku gelinayne. runta oo fiirso maxay tahay bal waxaad isweydiisaa waa maxay sababta boqorkii khasaasinadu uu hadda marka kacab ibn maalik oo warqadan uu ugu soo diray oo uu ku leeyahay annaga noo imo. dabcan sababtu waxa weeye waa marka koobaade inuu muslimiinta dhexdooda inuu kala jabiyo. waa marka labaade waa arrin lagu faanayo oo marka la odhanayo ninkii aad dayacdeen eed marka aad sida xun ula dhaqanteen annaga wanaajinay, ninkii idinka tirsanana annagu naga tirsan yahay. waa marka saddexaade in isagu inuu jaajuuso u noqdo marka dambe uu u sheego muslimiinta meelaha ka jilcan yihiin iyo qaabka u shaqeeyaan iyo macluumaadkooda dhan inuu markaa u sheego. arrintana dabcan waa arrin iska caadiya xataa waqtigenan wadamada waaweynay America, Russia iyo dhammaan wadamada kale arrimahan oo kale markaa way adeegsadaan oo qof muwaadin oo wadanka kale u dhashay way soo qabsadaan qofka way wanaajiyaan si markaa waxyaabahaas oo dhan ay markaa ay uga faa'iidaan. kaca markaa waxuu yidhi warqadda markaan sidaa u akhriyey ayaa isla markadiiba naftayda maan la hadlay. waxaana ku udhi arrintanna waa imtixaan kale ayaan ku udhi. warqaddii durba waan qaaday ofinkana waan ku riday markaa waan gubay. runtii oo fiirsa dhacdana waa cajiib inaad imtixaanka lagu marnayo inaad baastaa iimaan bay kaaga baahan tahay, laakiin haddana inaad arrintana aad garato in arrintana ay imtixaan tahayna aqoon iyo cilmi ayaad u baahan tahay. kacabna u fiirso waxaa hadda caawinaya ee u adeegsanaya waa iimaan iyo cilmi inuu arrintaa ku samro oo arrintaa u dulqaato iimaankiisa u sahlaya, laakiin haddana in arrintan kalena uu fahmo inay imtixaan tahay iyo sababta dhibkan oo dhan inay ugu dhacayaan inuu fahmaana dabcan aqoon iyo cilmi ayay u baahnayd.
kacabna markaa isagoo oo kaashanaya iimaankiisii iyo cilmigii uu lahaa ee ilaahay uu siiyey ayaa haddana imtixaan kale oo arrintii hore kaba si adag markii u galayna wuxuu gartay inuu imtixaan kale ku jiro waxa uuna markaa naftiisa ka dhaadhaciyey oo uu yidhi arrintana waa imtixaan kale oo weyn lagama yaabo haddana imtixaan kale inaan ku dhaco warqadiina markaa saasuu ku gubay dabcan qofka muslimka ana dabcan waxa badbaadiyaa waa iimaankiisa haddana saasay tahay haddii iimaankaaga aadan cilmi iyo aqoon ku darina dabcan wuxunbaa kaa kala dhiman qofkuna wuxuu imtixaanaadka waaweyn nolosha marka uu kaga gudbi karayaa markuu labada isku biirsado iimaanna uu yeesho cilmi iyo aqoonna uu yeesho haddana kacab waxa uu yidhi 50 cisho 40 cisho marka ay dhammaadeen oo maalintii 4aad markii aanu maraynay ayaa haddana fariin kale ayaa xagga rasuulka ka timid ninna markaa waa la isoo diray waxaana laygu yidhi kacabow rasuulka sallam wuxuu ku farayaa inaad xaaskaaga aad ka tagto ayuu rasuulku ku farayaa ayaa haddana isla markadiiba si degdega waxaan ku odhi yidhi ninkii la isoo diray miyaan furaa buu ku yidhi mise waan ka tagaa uun ninkii la isoo diray ee fariinsidaha ahaa marka waxa ugu yidhi maya ha furin keliya ka fogow hana u soo dhowaanin xaaskaaga markaas ayuu waxa uu ka cabsameeyay xaaskiisii ayuu markaa wuxuu u diray qoyskii markaa hooyadeedii iyo qoyskoodiiba u diray waxuu ku yidhi ordo xaafadiinii tag buu ku yidhi runtii u fiirso muddo 40 cisho ayaa hadda laga aamusnaa oo nala hadlaynin haddana saasay tahay amar kale ayaa soo baxay oo lagu leeyahay xataa haddana xaaskaaga iskaga tag oo ka agfogo lagu leeyahay u fiirso kaca muusan odhanin maxaa dhacay muddo inta liban arrintan kusii jirina maxaan u kala tegaynaa waxaasoo dhan muuna odhanin laakiin isla markadiiba wuxuu la soo booday miyaan furaa mise waan ka tagaa uun ayuu la soo booday taasoo inoo caddaynaysa marka inuu doonayo in si dhaqsa amarka rasuulka sallam inuu u fuliyo ayuu doonayay arrintaas haddana mar labaad inoo caddaynaysa iimaankii u Kacab bin Malik uu lahaa labadii nin kale waa Muraare iyo Hilaal leh iyagana marka amarkaas oo kale ayaa gaadhay oo saasa loogu sheegay Kacab marka waxa uu yidhi markii dambe waxaan ogaaday in saaxiibkii kale waa Hilaal ibn Rabiica in Hilaal marka in xaaskiisu inta rasuulka u tagtay ku tiri rasuul Allah Hilaal waa nin weyn oo odaya oo muxuu ah guriga dhaxiisa wax kama qabsan karayo ee guriga aan uga shaqeeyo ay ku tiri markaas rasuulku ka ogolaaday wuxuuna ku yiri laakiin hala seexanin buu ku yiri markaas xaaskii Hilaal marka waxa tiri rasuul Allah laga soo bilaabo maalintii aad amarka bixisay ee tiriyana la hadlin maalinta laga soo bilaabo ilaa maanta oo 40 cisho Hilaal wax ooyay 40 cisho muxuu ah inaan la seexdana wax baayo u qaba ma jirto runta una fiirso Hilaal marka 40 cisho sida u dhanayeen dhibka soo gaaray isaguna intaas oo cisho isna waa uu ooyay uun haddana markii dambe Kacab waxa uu yimaaday dumar kamida marka qoyskiisa iyo marka qarabiisa kamida ayaa u yimaaday waxaana ku dhaheen Kacab adiguna rasuulka sallam ordaar soo weydiiso oo adiguna saasoo kale lagu ogolaado xaaskaaga soo weydiisay ku dhaheen markaasuu yiri seebaan rasuulkan ordaar u weydiisan karaa anigu saddexdooda ninka ugu yar baanahay arrintaana ma sameeynayo ayuu yiri Kacabna marka taladii ay marka hablaha qoyskiisa ay u soo jeediyeen marka isagu ka qaadan waayay halka haddaba marka ay marayeen oo 40 cisho ay u dhamaatay bal insha Allah 10 cisho ee kale waarsan iyo waxa ku dhici doona iyo marka dambe sida wax isu bedeli doonaan xalqadeena dambe aynu ku qaan doona dhamaantiin marka aad baan salaamaya